السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Ibrahim Adam maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay how I create my content sideen u sameeyaa muuqaaladayda ama muuqaaladan aad daawataan qaabkeen u sameeyaa sidoo kale waxaa jiro akhyaar i weydiisay halkaan muuqaalada ka keeno iyo sidoo kaleeto qaabka aan u sameeyo muuqaalkayga sida transitionada isticmaalay halkaan ka keeno sidoo kale graphics ka yar aan isticmaalay halkaan ka keeno waliba thumbnailka qaabkan u create kareeno marka maanta muuqaalkeena waxaan ku sheegi doonaa wadooyinka aan maro ama talaabooyinka aan qaado si aan u soo saaro muuqaal ama muuqaal aan u sameeyo horta dadku way kala duwan yihiin yani ka youtuber cusub ahaan aniga hal muuqaal si aan u soo saaro waxay ugu qaadataa muddo ilaa 8 ilaa 10 saacadood ah halka youtuberada qaar ay ku qaadato yani wax ka yar 2 saac ama 3 saacadood wax ka yar oo kaleeto ugu badnaan 2 saac inay ku qaadato ayaa laga yaabaa in ay muuqaal sameeyaan laakiin anigu maadaama aan cusbahay waxaan jeclahay in aan soo saaro wax tayo leh cod tayo leh iyo muuqaal tayo leh marka sidaas darteeda waqti far badan ayaan ku bixiyaa si aan u soo saaro hal muuqaal marka waxaa jiro marka wadooyin aan maro si aan muuqaal u soo saaro waxaan marka kula wadaagi doonaa softwareda aan isticmaalo qaabka aan maaragtay codka u duubo iyo transitionada halka aan ka keeno muuqaalada halka aan ka keeno iyo applicationada aan isticmaalo marka talaabada ugu horeysa ee aan qaado si aan muuqaal u sameeyo waxay noqotaa get the idea or the topic that I want to talk about horta in aan helo ideada fikradda ama mawduuca aan rabo in aan ka hadlo kadib markii aan helo midaasi ayaan waxaan qaadaa talaabada labaad sidoo kale waliba intaan talaabada labaad qaadin waxaan hubiyaa mawduuca aan ka hadlayo in aan xaqiijiyo rasminimadiisa mostly aan muuqaalada aan soo saaro ama mawduucyada aan ka hadlo waa mawduucyo aniga aan sameysto waa mawduucyo aniga ma aragtay yani wixii markaasi gaab ah jiro ayaan jeclaa in aan ka hadlo wixii ka dhiman dhalinyarada yani wixii markaasi maqan oo aan leeyahay waxaan yani dadkeena way ku liitaan ama bulshada way ku liidataa ayaan jeclahay yani sidoo kale waxaan jeclahay inaan idinla wadaago wax kasta oo faa'iido idin leh yani wax kasta oo faa'iido idin leh ayaan jeclahay in aan ka hadlo marka mostly mawduucan meel ka soo minguuriyay kama hadlo yani wax aan faa'iido ku jirin iyo waxaan qof ka soo koobiyay iyo waxaan soo turjumay no yani wax noocaas ma soo gudbiyo marka ideada aad ayaan uga taxadiraa ama mawduucan soo gudbinay aad ayaan uga taxadiraa bal inuu faa'iido leeyahay iyo inuusan lahayn markaas kadib ayaan qaadaa talaabada labaad oo ah inaan qoro transcript ama scenario markii aan qoro transcriptiga waxaan u qoraa si tafatiran waxaan u qoraa qaabkii aan u hadli lahaa waxaan u qoraa qaabka ugu wanaagsan oo aan u soo gudbin karo marka midaas aan sameeyo ka bacdi ayaan waxaan qaadaa talaabada saddexaad oo ah in aan cod u bedelo qormadii aan qoray ama transcriptigii aan qoray ayaan waxaan u bedelaa cod oo waan duubaa marka dadka badankooda markay duubayaan codka yani mic ay isticmaalaan ama microphone anigu maadaama youtuber cusbaan ahay hadda wax microphone ah ma isticmaalo laakiin waxaan isticmaalaa teleefankayga ayaan isticmaalaa si aan u duubo codka sidoo kale hal mid ayaa jirto codka waqtiga aad duubaysid waa muhiim yani waqti meel sawaxan leh meel ma aragtay qaylo badan ama dad qaylqaylinayaan yani ma wanaagsano waa inaad la tagtaa meel jawi degan ah sidoo kale waxay wanaagsan tahay inaad codka duubatid habeenkii ama subaxdii oo kale labadaas waqti ay aad u fiican tahay inaad codka duubatid sababta waqtigaasi jawiga aad ay u degan yahay marka codka duuba kadib ayaan waxaan qaadaa talaabada saddexaad oo ah in aan waxaan qaadaa talaabada afraad markii aan cod u bedelo ayaan waxaan qaadaa talaabada afraad oo ah in aan edit gareeyo codkii ayaan edit gareeyaa yani waan jarjaraa sidoo kaleeto sawaxanada yaryar ayaan ka saaraa yani codka nadiif ayaan ka dhigaa anigoo isticmaalayo application la yiraahdo Adobe Audition yani dadku way kala duwan yihiin yani qofba wax ayuu isticmaalaa qofba application ayuu isticmaalaa soo dadka qaar waxaa jira isticmaalo barnaamij la yiraahdo Audacity laakiin anigu waxaan isticmaalaa Adobe Audition oo isleeyahay yani maanta waa applicationka ugu fiican oo cod aad ku hagaajin karto marka codka aan edit garay ka bacdi ayaan waxaan qaadaa talaabada shanaad oo ah I get the videos that match the topic that I'm talking about yani waxaan raadiyaa marka muuqaalo match gareynayo mawduucan ka hadlayo wax match gareynayo mawduuca aan ka hadlayo talaabadaas ayaan qaadaa muuqaalada ayaan soo helaa muuqaalada xageen ka soo helaa marka sourciga aan ka heli karo muuqaaladaasi wanaagsan xagee waay marka mostly dadka meel kale ay isticmaalaan xitaa dadka qaar way iibsadaan muuqaalada laakiin aniga si free ayaan ku helaa anigoo isticmaalayo barnaamij la yiraahdo Pixels ayaad isticmaalaysaa waxaad tegaysaa Google-ka Pixels ay ku qoraysaa kadib waxaad tegaysaa qaybta videoska halkaas ayaad ka heli kartaa maaragtay muuqaalo free ah oo maaragtay oo no copyright ah
muuqaalka halkaas aad kala soo degtid wax copyright ma lahan. sidoo kale waxaa jiro iStock laakiin asagu waa lacag, waa inaad lacag bixisaa si aad u heshid maaragtay muuqaalada halkaas ku jira ama ma kareenayo topic aad ka hadlaysid. markaas kadib ayaan waxaan qaadaa tallaabada 6. tallaabadan waa aniga mid aan ku darsaday, yani waad ka maarmi kartaa laakiin waa muhiim, waan waxa muuqaalkaaga qorxinayo. so tallaabada 6 aan qaadayo waxay tahay I create motions or graphics that shows the points of the topic using Canva. okay, marka waxaan sameeyaa ama aan create gareeyaa motion ama graphics, yani waxyaalo motion graphics ka yani kor u soo baxayo kale. waxaan ku cadeynayaa yani pointiga aan ka hadlayo, yani waxaan kugu tusi doonaa halkan hoose, qaybtan hoose ay ka soo bixi doontaa yani barnaamijka saan ah oo kale taa haddaad rabtid inaad samaysid marka ama muuqaalkaaga aad kusoo darsid marka waxaan isticmaalaa Canva. okay, waa isticmaali kartaa barnaamijyada aad ku edit gareynaysid muuqaalka, laakiin ani waxaan isticmaalaa Canva ayaan kusoo sameeyaa. so Canva ayaan isticmaalaa si aan barnaamijkan u sameeyo, thumbnailkana waxaan isticmaalaa isla Canva. okay, so laakiin Canva markaad rabtid barnaamijyo inaad sidan oo kale isticmaashid iyo tayadooda sarreyso waa in aad iibsataa Canva Pro waa in aad iibsataa, yani waa lacag aan saas u badnayn. bishii anigu waxaan ku iibsadaa $16, yani macal markii laga jaro kaarkaaga waxa uu goosanayo $16 ay isku tagaysaa, laakiin marka qaar discount ay ku siinayaan ilaa $7 $8 waad ku heli kartaa. marka waxaan isticmaalaa Canva si aan u create gareeyo graphics ama motion graphics waliba anigoo iibsaday Canva Pro. marka in aad iibsato Canva Pro waxay kugu saacidaysaa in aad markaad soo dejinaysid muuqaalkan oo kaleeto aad ku heshid si yani quality aad u sareyso ilaa 4K ay ku heli kartaa. laakiin haddii maaragtay aadan iibsanin asaga ayaa kugu aaminayo, wuxuu kugu aaminayaa 720 pixel ayuu kugu dejinayaa oo hadhowtina wuxuu ka noqonayaa shucac ayaa ka galaya. marka si aad u heshid wax tayo leh waa inaad iibsataa Canva Pro. markii aan sameeyo graphics ayaan kadib waxaan qaadaa tallaabada 7 oo ah in codkii graphics iyo kilibadii aan soo dejiyay aan u bedelo video qurux badan anigoo isticmaalayo markaasi laba barnaamij midkood. yani labadan barnaamij ayaa aad hadda u fiican oo aad isticmaali kartaa haddii maaragtay editing uu ku bilaaban yahay, waxaad isticmaali kartaa Adobe Premiere Pro. sidoo kale haddii maaragtay aad cusub tahay ama aad ku cusub tahay muuqaal sameynta waxaad isticmaali kartaa CapCut Desktop. okay, horta fiiri, computer waa isticmaali kartaa, telephone waa isticmaali kartaa, laakiin I recommend inaad computer isticmaasho. computer markaa isticmaalaysid waxyaalo badan ay ku fududaanayo, yani ma ku dhahayo telephone waxba kuma samayn kartid. waxaa jira dad telephone ku sameeya muuqaalo aad u qurux badan, laakiin waxaa wanaagsan inaad isticmaashid desktop. so marka haddii aad ku cusub tahay qaybtan muuqaal sameynta waxaa simple ah oo aad isticmaali kartaa CapCut Desktop. waxaa jira CapCut telefonka, CapCut Desktop u jira oo aad yani u qurux badan oo aniga aad aan oga helay, aad ayaan u jeclahay. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa marka Adobe Premiere Pro. labadaas barnaamij ayaa markaad ugu fiican wax lagu edit kareeyo. way jiraan barnaamijyo kale wax lagu edit kareeyo sida Final Cut iyo maaragtay iyo barnaamijyo kale jiro, laakiinse labadan barnaamij ayaad kala dooran kartaa. waliba haddii aad tahay qof ku cusub qaybta editingka waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad isticmaashid CapCut Desktop. waxaa jira waliba YouTubero maaragtay aad u sharaxayo isticmaalida maaragtay CapCut oo aad ku samayn kartid barnaamijkii aad ku sameyn lahayd Adobe Premiere Pro. so marka 7daas tallaabo ayaan qaadaa si aan u soo saaro muuqaal. marka muuqaalkan aad hadirtaan daawanaysid isla wadadaas ayaan soo maray. sidoo kale in aan marka sameeyo muuqaal waxay ugu qaadataa maadaama aan ahay YouTuber cusub oo aan rabo inaan soo saaro muuqaal yani tayo leh, waxay ugu qaadataa ilaa 10 saacadood run ahaantii. yani waqtiga inta badan wuxuu iga baxana waxa weeyaan jarjaridda codka iyo sameynta graphics-ka, laakiin muuqaalka markii aan sameynayo aan isku keenayo yani waxay ugu qaadataa wax ka yar saacad ama 2 saac. problemka waxa weeyaan codka, jarjaridiisa iyo sidoo kale sameynta graphics-ka. marka waa wadada aan maro. sidoo kaleeto waxaa jira marka transitiono yaryar markuu muuqaal kaleeto yani ku bedelmaayo, waxaa jira marka transitiono yaryar aan isticmaalo. transitionadaas xageed ka helaysaa? linkiyada waxaan soo gelin doonaa qaybta description-ka. YouTube-ka ayaad ka heli kartaa, yani YouTube-ka waxaad ku qori kartaa video transitions. markaad qortidna waxaad arki doontaa transitiono badan oo ma aragtay ku jira YouTube-ka, halkaas ayaad ka heli kartaa. sidoo kale waxaad iska eegaysaa inay no copyright yihiin, yani inay copyright ay lahayn. badanaana maba lahaba copyright transitionada, yani qofkan soo gelinayo wuxuu ogyahay inuu qof kale isticmaalayo, so copyright uma yeelayo, copyright kuuma qabsanayo. so waad isticmaali kartaa. so ha ka welwelin mar walba in aad maaragtay wax qalado. wadadaas hadda aan marayo haddii qof caajislow aad tahay ay kugu adkaanaysaa. sidoo kale mid kaleeta ayaa jirto, dadka soo saara muuqaalada codka ah ayaa ka yani dhib badan dadka soo saara
muuqaalada kaamirada la soo fadhiisanayo yani qofka kaamirada soo fadhiisanayo codki iyo maaragtay iyo muuqaalki way isku la socdaan laakiin qofkan soo saarayo codka waa inuu codka gaar u duuba oo gaar u edit garaya sidoo kaleeto waa in muuqaaladii uu raadiyaa waa inuu muuqaalada isku keenaa waa inuu saaraa waa inuu graphics ka keenaa yani qofkana ka shaqo badan laakiin qofka kaleeto yani muuqaalada uu diyaarsan yahay graphics wixii uu u keenay dhac muuqaalku edit kareynaya codkii iyo muuqaalku way saaran yihiin so qofkaas ayaa ka fudud ay ila tahay ani ahaan saasan isleeyahay marka that's how I create my content waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan intaas ayaan jeclaaday inaan idin la wadaago waxaan rajaynayaa inaad wax ka fahanteen ama wax ka faa'iideen 7 talaabo aan qaado haddii hal mar aan kor maro talaabada koowaad aan qaado waxay tahay inaan fikradda soo helo talaabada labaad inaan qormadii sameeyo ama transcripting inaan sameeyo talaabada saddexaad inaan cod u bedelo talaabada afraad inaan codkii edit garayo talaabada shanaad in aan soo helo muuqaaladii anoo isticmaalayo maaragtay pixels sidoo kaleeto talaabada lixaad ayaan qaaday haddana anigoo abuurayo motion graphics anigoo isticmaalayo Canva sidoo kaleeto talaabada toddobaad ayaan qaaday anigoo isku keenayo codkii transitionadii muuqaaladii transitionadii dhexgelinayo sidoo kale maaragtay aan graphicskeena ku darayo ayaan maaragtay sameeya talaabadaas ayaan qaaday anigoo isticmaalayo CapCut Desktop ama Adobe Premiere Pro so 7 talaabo ayaan qaadaa marka haddii aad rabtid marka inaad muuqaal samaysid wadada waa taas yani 7 talaabaad qaadaysa muuqaal ayaad soo saaraysa waa haddii maaragtay aad u diyaarsan tahay qof caajislow ahna aadan ahayn oo aadna rabtid kaana go'anta inaad muuqaal samaysid yani wakaasa waqti waa inaad hurtaa mar haddii aad muuqaal samaynaysid waa inaad waqti u hurtaa yani waqti ma hayo waqtigan maala yacniga aad ku bixinaysid iyo inaan game dheelaan rabaa iyo yani it's not working okay yani content creation environment is not working for that waa inaad waqti gelisaa haddaad rabtid inaad content samaysid waa inaad asaga waqti gelisaa yeah you have to forget gamings you have to forget playing football you have to forget like doing the shit things okay you have to focus this laakiin nolosha kale inuu ka mashquuliyo lama rabo haddii shaqo kale aad leedahay waa inaad qabsataa shaqadaada haddii gym aad leedahay gymka waa inaad tagtaa haddii maaragtay hurdaad u baahantahay waa inaad seexataa laakiin waqtiyada kale timala yacniga inaad telephone dheer aad gashid oo aad dating aad sameynaysid maanta dhan haddii aad gaming sameynaysid haddii aad maaragtay watching movies aad tahay yani movie watcher haddaad tahay yani it's not good for you for those things haddaad rabtid inaad kusoo beertid content creation industry you have to give it time waa inaad waqti siisaa okay so don't worry these things ha ka welwelin inaad maaragtay wax qaladid ha ka welwelin inaad muuqaal fiican soo saari weysid that's not important YouTube maanta ku caawinayo ani 7 talaabo hadda ku siiyey 7 talaabo markaad qaadatid haddana waxyaalaha kale muuqaalka soo edit garan lahayd iyo CapCut sida u isticmaaleed ama Adobe Premiere Pro iyo yani isla YouTube kale ku jiraan haddana you don't need qof ku baro you don't need qof kale ku caawiyo you can create your own things using YouTube everything today everything is in YouTube okay maanta wax kasta YouTube ay ku jiraan marka waxaan jeclaaday inaan intaas la wadaago waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan waxaan ka codsanayaa in aad kanaalka subscribe saarto oo ku soo biirto asxaabtaadana aad la wadaagto ugu yaraan hal qof la wadaag muuqaalkan like taa kilmaamin assalamu alaykum